kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey kulan culus oo madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maanta ku dhexmaray Villa Soomaaliya kadib dalab ka yimid Farmaajo. Haddaba maxaa looga hadlay kulankan? Xog dhammaystiran ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isugu yeeray dhammaan madaxda maamul goboleedyada si ay ula shaqeeyaan maxaa ka jira in Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo in uu dagaal ku qaado madaxdii maamul goboleedyada ee sida tooska ula shaqeynaysa madaxweyne hore Farmaajo. Saciid Dani oo si degdeg ah ugu laabanaya Puntland iyo warar sheegaya in uu qaadayo tallaabooyin culus. Haddaba miyuu ka shaqeyn doonaa sidii xilka looga qaadin lahaa ku-xigeenkiisa Crash oo ka hor yimid muddadii uu sharaxnaa kursiga Villa Soomaaliya? qodobada kale waxaa ka mid ah maxay dawladaha Carabta sida Qatar, Imaaraadka iyo Sacuudiga ka yiraahdeen doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee uu ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Mareykanka oo ciidamo cusub oo noocooda u soo diraya Soomaaliya kadib dikreeto uu soo saaray madaxweyne Joe Biden, iyo ciidamadan oo la filayo inay wax weyn ka bedelaan dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana talaado 17 bisha shanaad ee May sanada 2022. barnaamijkan si sheer gareeya oo u sii gudbiya saaxiibadeena kale ee idinkugu jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aynu ku bilowno wararkeena. waxaynu ku bilaabaynaa xogta kulankii dhex maray madaxweyne Farmaajo oo ah madaxweynaha xilka ka sii degaya iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay maanta tagay xarunta Villa Soomaaliya tan iyo markii la doortay Axadii la soo dhaafay ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynihii hore ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulanka oo dhacay barqanimadii maanta ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa isxog waraysi iyo soo dhoweyn sida ay noo sheegeen ila wareedyo xogogaal ah oo la socday kulankaasi. sidoo kale waxaa kulanka lagu soo qaaday arrimo ku aadan munaasabadda xil wareejinta oo lagu wado in la qabto toddobaadka soo socda si uu xafiiska ula wareego madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ahaa xubno ka tirsan Villa Soomaaliya iyo kuwo kale oo la socday madaxweynaha mar labaad la doortay ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne hore Farmaajo oo horey u aqbalay natiijadii ka soo baxday doorashadii looga adkaaday ayaa u hambaliyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya. dhinaca kale waxaa la filayaa in madaxweynaha cusub uu saacadaha soo socdo kulan wadajir ah la qaato siyaasiyiin kala duwan kuwaas oo uu kala markaasi hadli doono sidii loo qaban lahaa xafladda markaasi xil wareejinta iyo sidoo kale caleema saarka qaabkii markaasi u dhici lahayd. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi waday saacadihii u dambeeyay kadib doorashadiisii kulamo saf ballaaran ah oo uu la qaadanayay dad madax ah, siyaasiyiin iyo waliba sidoo kale dad kale oo markaasi caadi ah oo bulshada rayidka markaasi qayb ka ah. guusha Xasan Sheekh ayaana waxaa si weyn u soo dhaweeyay xubnihii markaasi mucaaradka ku ahaa madaxweynihii hore haddana xilka ka sii degaya Farmaajo, kaas oo looga adkaaday doorasho ka dhacday teendhada Visione. dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isugu yeeray dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo uu kulan la qaadan doono. waxa uu kala hadli doonaa arrimo ku saabsan doorashadiisa. xogaha aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbanayo madaxda maamul goboleedyada inay markaasi si dhow ula shaqeeyaan isla markaana ay ku taageeraan xilka loo igmaday. waxaa la fahamsan yahay in madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayba yihiin xubnihii markaasi isaga taageeray ee soo saaray, waana markaasi suuragal weyn in ay si dhow iskula shaqeeyaan maadaama ninka la yiraahdo Saciid Dani uu kooxda Damu Jadiid markaasi qayb ka ahaa, halka Axmed Madoobe uu isaguna si dhow u taageersan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. warar la helayo ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaal ku qaado madaxdii maamul goboleedyada ee la shaqeynaysay tiimkii hore amaba madaxweynihii hore ee Farmaajo. maamul goboleedyadaas waxaa markaasi caqabada ugu weyn ay haysataa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynahooda Lafta Gareen waxa uu ahaa siyaasi aanan la gamban aragtidiisa uu ku taageerayo Villa Soomaaliya, waxauna ahaa nin si toos ah u weerari jiray mucaaradka iyo maamul goboleedyada kale. waxayna u badnaan kartaa in markaasi laga saaro amaba laga taqaluso Lafta Gareen. laakiin madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle waxay u muuqdeen kuwa dhexdhexaad ah, taasoo suurtagal tahay in Xasan Sheekh Maxamuud uusan markaa ku degdegi karin. marka loo fiiriyo xitaa madaxweynaha Galmudug Qoorqoor waa nin markaasi soo saaray xildhibaano badan oo mucaarad ah, sidoo kalena xildhibaanada mucaaradka ay hadda intooda badan taageersan yihiin sida Mahad Salaad iyo xubno kale
oo Odawa oo qayb ka yihiin waana ragga ugu dhow hadda madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud. laakiin madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxaa leeyahay waxaa markaasi saameynaysa awood qaybsiga maadaama ay isku hayb yihiin madaxweynaha la doortay markaasi maxamed waa xasan sheekh maxamuud. waa hagaag weli wararka ayaad daawanaysaan. markaana aynu fiirino madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa qorsheynaya in uu dib markaasi ugu laabto deegaanada Puntland isaga oo qaadaya tallaabooyin aad u culus. xogaynu helayna ayaa waxay sheegayaan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani inuu ku guul dareystay doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliya kadib uu qorsheynayo arrimo halisa. waxaa la sheegayaa inuu qorsheynayo in marka uu dib ugu laabto Garowe uu qaado tallaabooyin markaasi uu arko in uu kaga hilmaami karo caradii uu ka soo qaaday guuldaradii doorashada ee Muqdisho. Siciid Dani ayaa qorsheeyay in tallaabada koowaad uu ka qaado madaxweyne ku-xigeenkiisa Puntland Crash oo xilligii Dani uu ku sugnaa Muqdisho soo saaray wareegto uu xilka kula wareegay isla markaana safarka Dani ku tilmaamay mid sharci darro ah maadaama uu olole siyaasadeed galayna ay ahayd inuu xilka wareejiyo. Dani ayaa waxa u qorsheysan in uu kiciyo xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo kulankooda ugu horeeya uu dhici doono bisha June hase ahaatee suuragal ay tahay in la soo hormariyo furitaanka fadhiga baarlamaanka Puntland si loo soo gabagabeeyo waxyaabaha markaasi lagu soo afjarayo waayaha xukun ee Axmed Karaash. tallaabada labaad ee uu qaadi doono Dani ayaa noqon doonta inuu tallaabo aanan caadi ahayn uu ka qaadi doono kooxdii reer Puntland ee ku dhabar jabisay doorashadii uu ku guul dareystay ee madaxtinimada Soomaaliya. kooxdaas oo isla doorashooyinkii golaha ee deegaanka ee Qardho guuldaradii uu kala kulmay sidaan oo kale dhabar jabiyey una sabab ahaa guuldaradii soo gaartay. kooxda dhabar jabisay oo isugu jirta xildhibaano heer federaal iyo siyaasiyiin ayaa wararka aynu helayno ay sheegayaan inay ka mid yihiin xildhibaano laga soo doortay Puntland oo tiradooda gaarayaan 6 kuwaas oo aan codkooda siinin Siciid Dani waana xubno ay ka mid yihiin Sacdiye Salaad Samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole, Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade, Cabdullaahi Bidhaan Warsame, Sareedo Maxamed Cabdi iyo xildhibaan Cali Xoosh. Siciid Dani oo adkaysigiisa siyaasadeed ee ku lamaanan carab badan ayaa la filayaa in safarka uu ku joogo Muqdisho soo gaabiyo uu si degdeg ah ku tago Puntland maadaama mowjado siyaasadeed ay uga furan yihiin maamulka uu markaasi hogaamiyaha ka yahay. hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. haatana aynu fiirino waxa dowladaha carabta ay markaasi ka yiraahdeen doorashada uu ku soo baxay xasan sheekh maxamuud sida dowladaha Qatar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. dowladaha carabta ee saameynta ku leh Soomaaliya ayaa fariimo hambaliya u soo diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalin kadib markii xilka markaasi loo doortay. sida shaacisay wakaalada wararka dalka Qatar, amiirka dalkaas Hamad bin Khalifa Al Thani iyo ku-xigeenkiisa ayaa hambaliyo waxay u direen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. dhinaca kale madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa dhambaal hambaliya u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo ahna ra'iisul wasaaraha iyo xaakimka Dubai Sheekh Mohammed bin Rashid ayaa sidoo kale fariintaasi la mid ah u diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sida ay faafisay wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga, boqorka Sacuudiga iyo dhaxal sugaha ayaa hambaliyo u diray madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya. boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdicaziz iyo dhaxal sugaha wadankaas Maxamed bin Salmaan ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya u rajeeyay guul madaxweynaha cusub ee markaasi Soomaaliya. qaybihii ugu dambeeyay ayaynu isla soo gaarnay. dowladda Mareykanka ayaa markaasi qorsheynaysa in ay ciidamo cusub u soo dirto Soomaaliya. madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaana ku dhawaaqay in ciidamo cusub loo dirayo Soomaaliya oo lagu soo celinayo ciidamadii horey looga qaaday. 700 askari oo Soomaaliya ku sugnaa ayaa waxaa markaasi ka saaray madaxweynihii hore Donald Trump waxaana qorshaha madaxweynaha Mareykanka kamid ah in la beegsado ku dhawaad 12 kamid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya. Joe Biden ayaa saxiixay amar uu boqolaal kamid ah ciidamada militariga Mareykanka dib loogu celinayo Soomaaliya sida uu qoray wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka. waxaa kaloo tallaabadan markaasi dheeri ku ah codsiga Pentagon-ka oo ku saabsan in la beegsado ku dhawaad 12 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin
hogaamiyaasha al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida. go-aanka ciidamada Mareykanka dib loogu soo celinayo Soomaaliya waxaa soo jeediyey xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka. bayaan ay soo saartay afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa ku qirtay in tallaabadaasi ay tahay mid suurtagelin doonta in wax looga bedelo dagaalka al-shabaab. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan lamid ah intaanu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.